سؤال باترتي مالمها صون نقونيسي مالنتي سبت ده واحد عدين أذان كي صلاة المغرب دت قار أي أذامين وقت كهرية وقت جي أي حيد إلا أذامه سيدا وجدنا ضد بدني أي كو قلدمين أو أي مركا كو أفرين مركا شيخ دت كي أفري صون كودي محون نقونيا قف كان مؤذن كأمانة إلى لين وعينا إسقنا محا اللي ليا سؤال شكو حكتا قبل باسو قرتي waxay leedahay sheekh hooyadii waxay bixisay Yurub anaguna markii aan ogaaday wadamada gaalada magaca la yiraahdo waan iska bedelay oo hodan ayaan la baxay reerkii marka aan ka dhashay waxa aan u sheegay inay iga daayaan magacaas markaan la joogo waxay inta badan igu yeedhaan bay tiri hodan balse markaan ka maqanahay waxay yaqaanaan Yurub marka su'aashaydu waxay tiri horta marka hore xaq ma u leeyahay inaan magaca iska bedelo waa kow waa marka labaad qofkii magaca igu yeedha aan diidanahay muxuu noqonayaa su'aasha labaad ee saddexaad gabadhan waxay ninba waxa uu leeyahay xaaskaygii laba goor ayaan iyadoo uur la furay haddana mar saddexaad baan furay marka ma laga yaabaa buu leeyahay sheekh in qiil la helo sababtoo ah reerkayga waan jeclahay shaydaan ayaa soo kala dhex galay marka labada goor ee uurka furniinkii sax ma yahay mise marka waa la iga dhaafayaa buu leeyahay su'aasha afraad gabadha ayaa waxay leedahay fadiilada sheekh nin baan muddo dheer sheekaysanayni markii dambena wuxuu yiri waxba gacanta kuma hayo ee aynu ismeher xadno oo aynu si hoose isu sii mehersanno kadibna markii la gaaray waqti ee aan ku yiri reerihii aynu sheegno wuxuu igu yiri runtii anu kuma oran sheeg ee qarsoodigaas aynu ku wadaynaa ragaygi markaan u sheegayna wuxuu ku dhaanu gabadha garanba maayo sida awgeed waxay leedahay maadaama oo de meher dhacay miyaan ninkii meher ku leeyahay furiinna ma ka dalban karaa su'aasha ugu dambaysa gabadhan waxay leedahay sheekh waxaan ahay gabadh shaqaale caafimaada waxaan ka shaqeeyaa cusbitaalada mid kamid ah dadka aan u shaqeeyo waxa kamid ah bay leedahay rag marka haddii anigoo weyse qaba nin aan u shaqeynayo ama aan dhiigiisa cabirayo gacantiisa aan taabto weysadu ma iga jabaysaa sidoo kalena hooyo umulaysa haddii aan caawiyo anigoo golofis xidhan oo dhiigeedii soo gaadho sidoo kale weysadii ma iga jabaysaa بسم الله الحمد لله مغربك يا مغربك هدي وقتيسي laga horeysiyo afurkana waqtigiisi laga horeysiyo labaduba waa qalle salaadii magriba waqtigeedii aan la gaarin oo la tukaday waa qalle maalinka isagoo aan dhamaystirmin qoraxdu soo jeeda la cunayna waa qalle qofka adaamay iyadoo waqtigii la gaarinna de waa dambiile لأنه أمانة مو جذانين إلا الرسول صلى الله عليه وسلم حط الماء قف كمؤدي كيلو يا مؤتمن قف الآمني مركب وحبو خيامة وخاين خيامة دينات بالسماء قف كنا هدو خيامة السماء حر ولا أما أبا المرن ولا عقاب أيو لي فوضى إن هاي ستون بكمة فوضى لأن عيب بدن بينها هاي ستا هي النظام حماض حاجة دين تنوى كمل مركب وهالريبة فوضى واحد كتشتا قفان مسؤولية دين قاضي كرينه اللور دي بيو أذانك أحكامتي ما يقبل الله يا كنتمين أذانك أحكامتي سكبضن ما قرنايو إمام نمان ما قرنايو هير هبل باللوجو دي مساجك دينو هير هبل ويري يوم مركب قاضي وكاكو يري القرعة دي سوى شيء ده أذاني مركب مساجد ده دتك أما إمام لوجو دي جاية أما مؤذن لوجو دي جاية كرسينا وكدن بابا يعيد عنه هلاينا دو وديبو كاننا هدو دتك أفرية وكدن بابا إلا تبقى لا حساب تما ماشي لقى إريانوي si aanu dib ugu noqonin waana dhacdaa taasina waxa keenaya inay soo noqnoqoto waa wax qabad la'aanta jihooyinka ay khusayso ama cidda masaajidka ka masuula ama wasaaradii ka masuulahaydo waajibkoodii gudan waayay ayaa kalifaya dadkuna way soo qaleynayaan inanta sheegtay in Yurub loo dhan jiray iska bedeshay way ku hagaagsantay magac kasto xun qofku iska bedeli karaa sidoo rasuulkuba uga bedelayay sallallahu alayhi wasallam rag iyo dumar ba asxaabtiis wixii magaciisa uu garan waayay uu ka bedeli jiray nabiga qofkuna isaga xaq u leh magaciisa inuu bedelo dadku hadii ay kugu yeedhaan de way fiicayn haday kugu yeedhi waana way qaldayn waliba magaca diidayso ama xun hadii lagu yeedhana qaybaha xanta ayay ka mid noqonaysa dhikr alghibatu dhikruka akhaka bima yakrah xan waxa la yiraahdaa walaalkaaga ugu yeedho qofkii muslimkaada ugu yeedho wuxuu diidayo
markaa adigu doorkaagii waad qaadatay iyagana kula tali inay kaa daayaan ninka sheegay xaaskiisii inuu furay mar labaadna furay mar saddexaadna furay iyadoo uur leh saddexda dalqadoodba way dhacayaan waayo gabadhu markay ku jirto ciddo haddii mar labaad la furo wuu haleelayaa dalaaqu mar saddexaad haddii la furana wuu ka daba tegayaa kol haddii dalaaqu aanu mar keli ahayn ee uu kala googo-an yahay gabadh la furay oo ciddo tirsanaysa dalqadu ma ku dhacaysaa haway ku dhacaysa oo waxay leedahay xukumkii ooridoo kale markaa way kaa dhammaadeen bay ka dhigantay saddexdaa dalqadoodba gabadhaa sheegaysa inay iyada iyo ninku ismeherxadeen meherkaa la xaday ma jiro laakiin haddana marka aad doonayso inaad nin kala guursato ama ka madax bannaanaato laabudda min waraqati tafriiq warqad idin kala kaxaysaa waa inay jirto ama isagu kuu qoro ama qaadigu kuu qoro laakiin iskama guursan karaysid ilaa waxaan marka horeba guur baad u aaminsanayd waana ku wada socoteen meher waad ku yeelanaysaa haddii uu wax kuu magacaabay ama galma jirto inantaa kale ee sheegaysa inay u shaqaynayso iyadoo fiilka caafimaadka ama caafimaadka ka shaqaynaysa ragga u shaqaynayso ee ragga taataabanayso waxa kuu fiican dumarku inaad ka shaqayso ragga waxaad ka shaqayn kartaa haddii la waayay rag kaloo u shaqeeya innagana waa la helayaa oo way badan tahay in iyadoo la heli karaya ninka u shaqeeya inay hablo loo diro waa isxariifinta waxay ka mid tahay iyo maaragtay gaalo ku dayashadii xasay ka mid tahay iyadoo inamadii neeraska halkan joogaan ayaa hablo neerasta ragga loo diraya inamadiina dumar baa loo diraya taasi sax maaha waa qalad waana gaf weeye qofku kolka uu qof kaloo ka ajnabiya ama cawradiisu ka xaaraanta eegi karaa waa marka jinsigiisii loo waayo su-aasheeda kale ah haddii aan taabto xubinkaa tarankee qofkii aan ka dhalinaya anoo golofis gashan waysadu miyay iga buraysaa maya kol haddaad golofiskii gashan tahay oo wax kaa xiga kaama burayso wallahu